hay-adda Somali Relief Development Organization ayaa deeq isugu jirtay dhar iyo lacag oo ku wajahan munaasabadda Ciidul Fidriga gaarsiisay qaar ka mid ah ubadka agoonta ah ee magaalada Ceerigaabo oo hay-addaasi gacanta ku hayso. Waxaa sidoo kale hay-addaasi ay jaayisado iyo shahaadooyin guddoonsiisay qaar ka mid ah carruurta agoonta ah oo dhammaystay waxbarashada Quraanka Kariimka ah. Waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay Kaysa Cabdi Cali Qodax iyo Siciid Cabdi Xuseen oo ka mid ah xubnaha wakiilka uga ah hay-addaasi gobolka Sanaag. maanta kulankeenani wuxuu daaran yahay dhowr qodobka koobaad ardayda hay-addu gacanta ay ku haysay arday kamid ah oo dhamaystay Quraanka in halka kan lagu guddoonsiin doono shahaadooyin iyo jaayiso ay hay-addu siin doonto. sidoo kale waxaanu yana sidii hay-adda qorshaheeda ahayd ay uga farxin jirtay agoomaha ay gacanta ku hayso in halka kan aynu yana ku guddoonsiin doono dhammaan ardayda halkan fadhida dharkii ay ku ciidi lahaayeen. waxa iyaduna intaa dheer hay-addu iyadoo runtii la qaybsanaysa farxadda agoomaha ay gacanta ku hayso inay agoon walba ugu tala gashay xaqal ciid oo isagana la guddoonsiin doono Ilaahay fadligiis. qolqol joog iyo qurba joogba waxaa dadka muslimiinta aanu aad ugu tirtirsaynaa oo aad ugu boorinaynaa in hawshan laga qayb qaato oo sidii meel loogu dhisi lahaa agoonta iyo sidii noloshooda dhan loo kafaalo qaadan lahaa lagu dadaalo. hadeerto madrasada ayaa laga bixiyaa bishiina waxbarashadii kale waxay iskaga bixiyaan ayaa la siiyaa. laakiin haday suurto galayso in boodhan oo kale laga dhigo aad bay u fiicnaan lahayd waxbarashadooduna aad bay ugu kobci lahayd. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnaha isugu jira qurba joogta gobolka Sanaag waayeel iyo waxgarad tiro badan oo dhammaantoodba ku bogaadiyay hay-adda Somali Relief daryeelkooda ku wajahan carruurta agoonta ah ee magaalada Ceerigaabo. dadka ka qayb qaatay haday hay-ad yihiin iyo haday qurba joog yihiin waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro. madrasada Quraanka agoonta magaalada Ceerigaabo ay aasaaseen walaalaheen hay-addaas Somali Relief runtii waa meeshii ugu wanaagsanayd baad Ilaahay idin waafajiyay subxaanahu wa ta'ala inta taban taabisa oo waxa weeye dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo meel kastabana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr iyo xasanaad ka siiyo. marka hay-adda iyo dadkaasba dhammaanta organizationka isku duuban aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaya. waxaan leeyahay intaas ka sii wada dadaalka in lana haydin fududeeyo ardayda Quraanka dhamaysayna waxaan kula dardaarmayaa awalan inaysan Quraankii iyo tacabkii loo soo galay halka kaga tagin. qoliyaha qurbahan waxa leeyahay waxyaalo kale inuu lacayo ku bixinaa laakiin aanu lacag ku bixino hay'adahan oo kale agoomaha wax lagu barayo weeyaan ku bixinaa hantiyaha badan aynu bixino oo aynu meelaha kale marino tana ka mihiisan midheedana aynu guran doona hadii Ilaahay ka dhigo. marka waxaan leeyahay arintaas loo wada gurmado hana loo diyaar garoobo sidii lacag loogu ururin lahaa agoomahaas. waalidiintii carruurta gurigooda ay ka soo dareereen macallinkii waxbaray hay-addan ciidka iyo xaqal ciidka isugu dartay dhammaan aad baad u mahadsantiin 100% jazakallahu khayr baad ka helaysaan. Yusuf Cabdi Xasan Cabdi telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.